أفضل وانا باشا وقرح حساب باشا. ساس كنا بنوقف شو أنت العكس. halkaa waxaan ku qabanaynaa waxaan ka fulinaynaa shaqo oo ah shirkadda baraadka oo sharaab dhacay oo waxa weeye aanu halkaan aanu ka soo ragnay magaalada oo aan rabno halkaan inaan ku gubno si oo looga badbaado dhibaatooyinkiisa maadaama uu gabay manaafacaadkiisii sharaabka waxa iska leh shirkadda baraadka waa sharaab aad u tiro badan sharaabkan systemkiisu waxa weeye marka hore waxa loo sameeyay Juba Sudan ka bacdina qalaalasi markuu ka dhacay waxa suurtagali weyday in alaabtii ay transitkii ay ku sii socoto xagga loo soo looxiyay capacity-gi marka oo ay u baahnayd Puntland buu ka batay timekiisii buu dhaafay sidaa daraadeed waxaan u gudbinay qolada oo dawladda hoose qaybta fayadhowrka ka bacdina waxay nagu caawiyeen in nala fudeeyaan oo nala shaqeeyaan oo nala soo raraan oo aanu ka wada shaqeyno si aanu dhibaatadaas aan xal ugu helo waxay suurta gashay maanta in aan hawsha qabanno annaga oo isku duuban haddana shaqadii way socotaa waxaan samaynaynaa marka insha Allah haddii Ilaahay idmo waa bilownay waa dhammaynaynaa sidaas oo kalena waxa loo baahan yahay wax kasta oo alaabta noocaas oo kala noqota in wax laga qabto si aysan suuqa u gelin oo aysan dadka maaragtay qaybtood waxay danaynaysaa inay wixii iska use karayso ayagoo wixii ahayn wax oo caafimaadka iyo wax walba wax yeeli kara iyo hawada laftigeeda sidaa daraadeed saaka halkan waxaan ku fulinaynaa anigoo u hadlahaya shirkadda baraadko oo shaqadaas hadda fulinaya in aanu saaka shaqadaas aanu bilownay haddana ay gabagaba tahay si aanu uga takhalusno bahalkaas oo sharaabkaas originalka ah oo systemkaas oo transferka ku yimi marka insha Allah waxaan rajaynaynaa qaybta dawladda hoose inteeda kalena inay naga caawiso oo maaragtay shaqada ay nala dhamayso inta yar oo nooga dhiman hadii Ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meesha isku keenay ama had iska leh aad celin kadib shirkadda baraadka oo sharaab dhacay oo ay tankiisu yahay 1500 oo tan oo kartoon ayay soo banaan dhigtay iyadoo aan cidina daba gelin iyadoo ay ahaynaysa ganacsiga iyo muslimnimada iyo muwaadinimada kadib markuu dhacana waxay nagu soo warsiisay hadaan nahay anagu xilwaana deegaanka gobolka bari in sharaabkaas u dhacay doonayaan in la gubo alxamdulillah anagu ka dawladda hoose aan la fududeynay furintan la fududeynana waxay ahayd inaanu kala qayb qaadano qaabka loo gubaayo iyo shaqada aad iyo aad baanu macna si firfircoon iyagana xaqooda uga garab siinay maantana halka lagu gubayaa waan uga mahad celinaynaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay ugu bedelo awl celin khayr qabta ninkii hadlaayay mashan shishaan ku siyaa mise shan shir baan ka sheega shirkadda baraadka waxaan ka sheegi doonaa meel walba aanu tagno waxayna ka mid noqon doontaa wacyi gelinta dalka iyo dadka
si bini'aadantinimo leh oo muslimnimo leh ayay hawshaa uga qayb qaadatay iyaduna waxa weeye dabagal kuma aanu hayn laakiin wax badan baan u kuurgallay haddeerna ku daba taaganna insha allah bidnillahi kariim bannaankana aan soo dhigi doonaa ama daawooyin dhacay ha noqdeen ama sidoo kale sharaab iyo raashin dhacay ha noqdeen insha allah waa ku daba taaganna waxaan leenahay marka bulshada reer Boosaaso waxaan ku wacyigelinaynaa sidaa shirkada Baraako ay u soo bannaan dhigtay wixii idinka dhacay idinkuna u soo bannaan dhiga